taariikhdu markii ku beegnay 12 Oktoobar 1972 waxaa maalintaas dhacday in diyaaradii ay ka kacdo wadanka dhaca koonfurta Ameerika ee loo yaqaan Uruguay halkaasoo diyaaradan ay u socotay magaalada Santiago ee caasimadda Chile haddaba guud ahaan diyaaradan ay saarnaayeen rakaab ka kooban 45 qofood kuwaasoo ah ku ciyaaryahanada sidoo kalena ciyaarta loo yaqaan rugby halka ay weheliyeen ciyaaryahanadaas qayb ka mid ah faamilkooda iyo asxaabtooda sida yaataba in kastoo safarkaas ahayn mid dheer sidoo kalena uu qaadanayo kaliya 3 saacadood haddana arrin kale jira ayaa ahaa in dhulka la sii mariyo waa silsilad wada buura ah sidoo kalena uu isqariyo barafku buurahaas oo aan ahayn buura iska caadiya balse ah buuraha isku xidhan ee ugu dheer dunida kuwaasoo maalintaas wax walba bedeli doona haddaba maalintaas 12 Oktoobar waxaa dhacday in diyaaradan ay la kulanto duufaan aan inaba caadi ahayn buuriyo gudahooda taasoo ka liftay in diyaaradii ay sii duuli weydo halkaas ayna go'aansadeen beeloodii in diyaaradii ay ku dejiyaan dhaxda si isla markaas ay maalinta dambe duulimaadkoodii u sii wataan marka ay duufaantan kala yaraato laakiin marnaba ma aysan ogeyn in go'aankooda uu noqon doono go'aankii ugu xumaa ee ay gaadhaan sida yaataba ugu dambeyntii diyaaradii ay dejiyeen markii ay marayeen meesha lagu magacaabo Mendoza oo ku taal wadanka Argentina halkaasoo ay ku yideen habeenkii intaas kadib maalintii dambe taariikhdu markii 13 Oktoobar 1972 saacadu markii ay galabnimadii 8:18 daqiiqo diyaaradii ayaa mar kale bilowday inay cagaheeda qaaday kadib markii uu bayloodku yubiyay cimiladii halkaasoo ay diyaaradii bilowday safarkeedii ay si degan u sii wadato ilaa ugu dambeyntii laga soo gaaray saacadu markii 9:20 daqiiqo kadib hal saac oo duulimaadkii markaasoo ay hal mar wax walba isbedeleen haddaba diyaaradii ayaa markii uu bilowday inay hal mar jaawareerto sidoo kalena ay samayso hoos u dhac aad u weyn ayadoona isla markaas kontaroolkii luminaysa intaas kadib waxaa dhacday in dhinac walba isqariyaan daruuro iyo buuro aad u waaweyn kuwaasoona jiha walba ka jiray diyaaradii ayadoona ay adkaateen dirawaladii diyaaradda ay wax arkaan halka alarmigii diyaaraddan uu ahaa mid hal mar isqabsaday sida yaataba daqiiqada ay xaaladii ku jiraan kadib waxaa dhacday in diyaaradii ay ka soo dhex baxda daruurihii iyo weliba ceeryaamadii ay ku jirtay laakiin haba ka soo baxaan ma xumee maxaa hortooda ah haddaba waa markii uu darawalkii ku baraarugay inay ku sii wajahan yihiin buur aad u weyn taasoona hortooda ah halkaasuna isla markiiba uu bayloodkii ahaa mid bilaabay in inta karaankiisa uu diyaaradii kor qaado si uu isla markaas uga kormaro buurtan aadka u weyn laakiin nasiib xumo wakhtigaasoo dhan ma uusan haysanin ayadoona si kama kadib ay wax walba isbedeleen halkiina ay diyaaradii bilowday inay ku dhacdo buurtii aadka u weyneed ayadoona laba u kala qaybsantay intaas kadib waxaa dhacday in labadii kursi oo u dambeysay markiiba ka go'an diyaaradii halkaasoona ay hore u sii wateen 3 ka mid ah rakaabkii kuwaasoona hore u sii raacay kuraastii halka diyaaradiina qaybteedii hore ay ahayd mid si ka mid xiga hore u sii socotay ilaa ugu dambeyntii uu baadkeedii burburiyo buurka horeysay halka rakaabkiina ay ahaayeen kuwa weli ka daata diyaaradii ilaa markii dambe ay diyaaradii kaga dhacdo buur aad u weyn taasoona shilkii ka dhashay joojisay diyaaradii ayadoona halkii ay wax walba ku burbureen sidoo kalena ay halkii ku dhinteen markiiba bayloodadii diyaaradda intaasoo kaliya ma aha halka sidoo kale ay dhinteen 10 kale oo ka mid ah rakaabkii iyo shaqaalihii halkiina ay ku soo hadheen 33 qof rakaabkii ka kooban 45 kuwaasoona isla markaas si mucjisale kaga badbaaday shilkii inkastoo uu qayb ka mid ah soo gaadhay dhaawac aad u darnaa waxay yaataba laakiin dhibaato jirta ayaa ahayd in meeshan uu shilku ka dhacay ay ahayd meel uusan qofna ogeyn sidoo kalena u jirtay meesha ay u socdeen in ka badan 80 kiiloomitir halka ay dhanka kale meeshan ahayd meel qabooba ah sidoo kalena dhulka ka saraysay 3570 mitir ayadoona qisada xanuunka badan ee badbaadayaashan ay halkan ka bilaaban doonto iyo midda ugu xanuunka badan oo ah in waxay la kulmi doonaan badbaadayaashan aysan ayagaasi weliba adigaagan hadda daawanay aysan marnaba aamini doonin haddaba igula soo dhowow qisada lama ilaawaanka ee falaytkii 571 mid ka mid ah falaytkii ugu argagaxa badnaa taariikhda Gold transport plane crashed in the Andes Mountains. 45 persons were aboard, given up for dead. Survival fascinates people. All of the passengers were given up for dead. It became known as the miracle of the Andes. haddaba daqiiqada kadib markii uu dhacay shilkan argagaxa badan waxaa jirtay in laba ka mid ah rakaabkii diyaaraddan ay isla markaas hayeen kuwa uusan dhaawac adag soo gaadhin marka la barbardhigo badbaadayaasha kale ee diyaaradda la saarnaa labadaasoona kala ahaa ninkan oo lagu magacaabo Roberto Canisa oo waqtigaas jiray 19 sano iyo ninkan oo lagu magacaabo Gustavo Zerbino oo asna waqtigaas jiray 20 sano ayadoona nasiib wanaaga dhanka labadan wiil ahaayeen arday bartay caafimaadka oo medical student ahayd halkaasoona ay markiiba bilaabeen inay ka wardoonaan xaaladda asxaabtoodii kale ee shilka gashay iyo sida ay wax u soo gaadheen cidda dhaawacoodu u daran yahay iyo cidda dhimatayba nasiib xumana midii ay markiiba ku baraarugeen ayaa ahayd in qaar badan oo rakaabkii ka mid ah ay ahaayeen kuwa uu soo gaadhay dhaawac aad u darnaa ayadoona dadkaasu dhaawacyada aadka u daran ay soo gaadheen uu ka mid ahaa 23 jirkii ninkan oo lagu magacaabo Fernando Barado kaasoona kooma galay kadib dhaawac xooggan oo madaxa ka soo gaadhay awgii sida yaataba labadan wiil ayaa isku dayay wax walba sidii ay u caawin lahaayeen badbaadayaashii shilkan aadka u daran ayagoona aan wakhtigaas waxba ka garanin qabowgaas iyo xaaladaas aadka xun ee lagu guda jiray halka dhanka kalena qabowga jiray awgeed ay xitaa diyaaradii burburkeedii ahayd mid sii qarsoomaysay sidoo kalena uu barafku waa mid qarinayay
haddaba saacada kadib markii laga soo wareegay shilkan waxaa dhacday in fariin la gaadhsiiyey waaxda raadinta ee dalka Chile halkaasoo markiiba ay bilaabeen raadintii diyaaradii ayagoona hore u soo kaxaysay 4 diyaaradood halkiina guda galay raadintii raadkii flight-kii 571 raadintaasoo socotay ilaa laga gaadhay habeenkii ugu dambeyntiina nasiixuma raadintaas ayaan noqonin mid lagu guuleysta halkaasoo aysan haba yaraatay wax raad ah helin asagoona ofisarkii waaxda raadinta bilaabay inuu joojiyo raadintii kadib markii uu ogaaday in shilkan uu ka dhacay meel aan la ogaan karin dhanka kale dhibaatada ayaa in xitaa haddii la heli lahaa noocan diyaarad ay ahayd nooc midabkeedu uu waa caddaan halka meeshan ay shilka ku gasheen ay ahayd meel wada caddaan oo dhul wada baraf ah kaasoona xitaa dhan walba ka qarnayay diyaaradii oo xitaa haddii laga agdhawaan lahaa macquul maahin in la kala garto ayada iyo barafka halka dhanka kalena qoladaas raadinta ay aad ugu adkeyd inay ka agdhawaadaan dhulkaas buuraha ah oo ayagaaba ahaa kuwa halis ku geli karay sidee haddaba dhanka kale markaan u nimaadna habeenka 13 Oktoobar badbaadayaasha ayaa dhanka kale ayaguna ahaa kuwa niyadda ku dhisay sidoo kalena rajeeyay in la heli doono kadib markii la gaadho maalinta dambe sidaas darteedna loo baahan yahay in balcaawa ay si uun isku manage gareeyaan qaabkii ay habeenkooda ugu dhammaysan lahaayeen goobtan aadka u qabowga badan laakiin maxay kugu taallaa isla habeenkiiba waxaa dhacday in 5 ka mid a dhaawacyadii aadka u darnaaya halkii ku naf waayaan qabowgii iyo badbaado la'aantii dhaawacoodii aadka u darnaa awgeed halkaasayna tiradii badbaadayaasha shilkan ka timaaday 33 sidoo kalena ay markan hoos ugu soo dhacday 28 qofood oo keliya intaas kadib badbaadayaashan ayaa markii u bilaabay inay hoy ka dhigtaan burburkii diyaaradan ayagoona isku soo ururiyay alaabihii iyo kuraasii si ay barafkan isuga difaacaan hoyna uga dhigtaan halkiina ay ku dabooleen daldalooladii uu ka soo gelayay barafku sida yaatab waxaa la gaadhay maalintii xigtay ay taariikhdu ahayd 14 Oktoobar halkaasoo maalintaasna ay 11 diyaaradood oo laga leeyahay wadannada Argentina, Chile iyo Uruguay ayaa markan bilaabeen raadintii diyaaradan iyo meesha ay shilka ku gashay waxay yaataba laakiin midii la yaab kale ay ahayd walow maalintaas raadiyaashan ay raadintoodii ka bilaabeen goobtii saxda ah ee ay ku dhacday diyaaradan laakiin haddana sidaas ay tahay nasiixuma aysan helin haba yaraatay wax raada walow goobta maalintaas ay ahayd goob saxan halka badbaadayaashii shilkan ay ayaguna ahaayeen kuwa qaab walba iskugu dayayay sidii loo heli lahaa ayagoona xitaa libstiigyadoodii ku dul qorayay calaamadii gargaarka burburkii diyaaradda korkooda si ay bal u arkaan diyaaradahan ayaga raadinaya kormaraya intaasoo keliya kuma ekaanin ayagoona dhanka kale ah kuwa isku dayay in dhammaan boorsooyinkii iyo alaabihii ay isku soo aruuriyaan halkaasina ay ahaayeen kuwa ka sameeyay calaamad koroosa barafkii korkiisa taasoona u sahlanaanaysa in raadiyayaashu ay kor ka arki karaan waxay yaataba laakiin midii ay ku baraarugeen ayaa ahayd in dadaalkaasoo dhan uusan gebi ahaanba shaqaynin oo maalintaas badbaadayaasha ayaan ahayn oo keliya kuwa arka hal diyaarad 2 diyaarad balse 3 diyaaradood kuwaasoona ayaga raadinayay laakiin haddana nasiixuma aan si walba ay ugu qayladhaamiyaan ugu gacan haadiyaan aan ahayn kuwa arka walow ay diyaaradahaasi korkooda marayeen ayadoona maalintaas ay ahayd mid guuldarradaas ku soo idlaatay intaas kadib maalintii xigtay ee 15 Oktoobar rakaabkii ayaa kuwa ku baraarugeynaysan haysan haba yaraatay wax biyo sidaas darteedna ay u baahan yihiin biyo si ay isla markaas u noolaadaan lacala hadiiba la helo halkaasoo mid ka mid ah rakaabkii keenay farsamo inay dhalaalsadaan barafkii ayagoona isticmaalayay walxii birta ahaa sidaasna ay ku samaystaan biyo waxay haataba 3 maalin kadib shilkii taariikhdu markaa 16 Oktoobar waxaa dhacday in Fernando Barrado uu ka soo kaco koomadii uu ku jiray 3daas maalin laakiin arrinkii xanuunka lahaa uu markiiba ku baraarugay ayaa ahayd dhimashadii hooyadii oo ahayd dadkii ugu horreeyay ee shilkii ku dhinta halka walaashiisa waqtigaas jirtay da'da 19 ay ahayd daawac aad u darnaa halkaasuna Barrado markii uu bilaabay inuu ka taxadaro walaashiisa yar inta karaankiisa ah asagoona isku dayay si allaale sidii uu ku badbaadin lahaa laakiin nasiixu maalmuhu sidii ay ku sii socdeen ilaa ugu dambeyntii 8 maalin shilkii kadib ay walaashii ahayd mid la dhimatay xanuunkii awgeed halkaasuna Barrado ahaa mid halkii kuwa ay labadii qofood ay ugu dhawaa noloshiisa haddaba midda kale la yaab kale ay ahayd sidii ay rakaabkan wada dhalinyarada u manage kareen muddada intaas leeg inay ku noolaadaan meeshan sidan dhan qabowga u ah ayagoona aan haba yaraatay haysanin cunto ku filan iyo weliba biyo halka dhanka kalena ay badbaadayaashan ahaayeen kuwaan hore ugu soo noolaan meel qabow iyo meel barafaba halka dhibaatada midaasoo dhan ka darnayd ay wajahayeen dhalinyaradan ay ahayd xanuunka loo yaqaanay snow blindness oo ah xanuun ka yimaada marka ay fallaaraha qoraxdu ay qabtaan barafka kadibna ay fallaarahaasi ku dhacaan indhaha taasoona saameyn aad u weyn ku yeelanaysa indhaha qofka bini'aadamka fallaarahaasona aad ugu yaraan uga badbaadi kara haddii aad xiran tahay sangalaas madow ah ayadoona tirada inta qof ee sangalaas wadatay ahayd oo keliya 3 qofood dhammaan rakaabkii saarnaa diyaaradan dhanka kale 8 cisho oo raadina kadib taariikhdu markaa 21 Oktoobar 1972 tiimkii raadinta ayaa kuwa gebi ahaanba isdhiibay ayagoona aaminay in haddii ay 8 cisho ay raadinayeen aysan helin haba yaraatay wax raada aynan markan u malaynaynin inay heli doonaan halka ay dhanka kalena aaminsanaayeen in waqti xaadirkan aysan macquul ahayn inuu qofku nool yahay rakaabkii diyaaradaas ugu dambeyntii operatiinkii raadinta ayaa markan si official u joogsaday kadib 142 saacadood oo raadina kadib dhanka kale markaan u nimaadno badbaadayaashii shilkan ayaa kuwa burburkii diyaaradda ka dhaxeelay raadiyo transistor halkaasuna mid ka mid ah rakaabkii oo lagu magacaabay Roy Harlow oo mid wax ka yaqaan elektriga uu bilaabay inuu isku rarakibo raadiyogan asagoona u sameynaya anteenooyin
nasiib wanaagna dadaal dheer kadib raadiyowgii ayaa ahaa mid bilaabay inuu shaqeeyo ayadoona nasiib xumo oo dhanka kale raadiyowgan ahaa mid one way communication ah oo keliya badbaadayaashan ayaa ahaa kuwa maqlayay laakiin aan sii gudbin karin haba yaraatay wax message ah haddaba maalintaas ay raadiyowgan shidan ayaa ahayd 11 maalin kadib shilkii ayagoona mid ay ka war heleen maalintaas ay noqotay warkii ugu xumaaya ay maqlaan intii cimrigooda ka dhiman kaasoona gebi ahaanba dhanka kale u bedelay xaaladii badbaadayaashan waxay haataba kadib markii ay shideen raadiyowgan waxay markiiba maqleen ayaa ah wararka sheegay in gebi ahaanba la joojiyay raadintoodii sidoo kalena guud ahaanba laga qoostay midanoona dhab ahaantii wadnaystaa ku noqotay dhammaantooda iyo in rajadii ay maalmahaasoo dhan ku noolaayeen ay hal mar burburto siday u dhannayd ayadoona midda ugu xanuunka badan ay ahayd in ayagoo nool lagaba soo qaadaba inay dhinteen sidoo kalena halkii lagu ilaawo laakiin maxay kugu taallaa waxaasoo dhan waxaa kasii darnaan doonta nolosha sugaysa badbaadayaashan maalmahan soo aadan iyo waxa ay la kulmi doonaan dhab ahaantiina waana midda qisadan ka dhigi doonta mid ka mid a qisooyinkaan marnaba la iloobi doonin abid waxyaataba saaxiibyaal intaynaan ugu digana qaybta xigta ee muuqaalkanan xiisaa badan waxaan aad u rajaynaya inaad ka mid noqoto saaxiibadan ugu xidhan ee channelka haddii aadan horey uga mid ahayn sababtoo ah waxaan qabaa rajaa inaan gaari doono 20,000 oo subscribers ah inta uusan sanad ku dhammaan insha allah idinka ayaana rajadaas run ka dhigi kara saaxiibayaal soo fadlan ha ilaawina channelka subscribe saarato mahadsanid haddaba waqti xaadirkan badbaadayaasha ayaa ahaa kuwa aan haysanin wax cunto ah ayagoona markii hore ahaa kuwa ku soo noolaa intaasay joogaan waxoogaa jukulaata iyo cuntooyin iska yareer oo ahaa cuntooyinka fudfudud laakiin waqti xaadirkan waxaasoo dhan gebagaba ayay kusoo dhowaayeen oo jukulaadkii iyo waxaasoo dhan waxaa uga harsanaa oo keliya waxoogaa yar oo aan xitaa maalin badhkeed hayn karin halka ay intaasoo dhan kusoo gaadheen ismaamul iyo inay maalin walba wax yar cunaan laakiin markan waxaasoo dhan ma jiraan oo saayadii gebi ahaanba halkan ayay ku go'day dhanka kale meeshan ayaan ahayn meel haba yaraatay wax geeda leh iyo xitaa meel ay xayawaanada ka ugaarsadaan halka dhanka kalena aysan meeshan wax xayawaanaa lahayn haba yaraatee ayadoona ugu dambayntii maalintii 12 ay cuntadii ahayd mid gebi ahaanba go'day halkaasoona ay dhallinyaradii qayb ka mid a bilaabeen inay cunaan wax walba oo dhuuntooda marayay ha noqoto suufkii kuraastii si ay bal wuxuun enerji uga helaan midanoona inay enerji ka qaadaan iska badaayay ayba ka sii qaadayeen uun xanuun kale halkaasoona ay xaaladdu markan gaadhay inay ku dhowaadaan inay gaajadii u dhintaan waxay haataba laakiin go'aankii ay badbaadayaashu markan qaateen ayaa ahaa go'aankii gebi ahaanba shoog ugu ridi lahaa ayagoona midda ay sameeyeen ay ahayd in si ay u sii noolaadaan ay go'aansadeen inay cunaan meydadkii kaga dhintay shilkii meydadkaasoona islamarkaas ahaa asxaabtoodii iyo faamiladoodii la saarnaa diyaaradda kuwaasoyna maalmo ka hor isla qoslayeenuun haddaba inkastooynan middaanay dhankooda ka ahayn wax macquula sababtuna ay ahayd maadaama ay dadkan dhintay ay ahaayeen faamiladooda iyo asxaabtooda iyo weliba dad ay intaasoo dhan soo wada noolaayeen haddana doorasho kale uma soo bixin aan ka ahayn in waxaasoo dhan ay dhinac iska dhigaan si ay bal u sii noolaadaan We have to eat, and the only proteins are the dead bodies of the people that were in this plane. intaas kadib waxaa dhacday in qof walba uu ku dhici waaya arrinkii ah inay cunaan meydadkii ilaa ugu dambayntii ay isku raaceen inuu bilaabo ninkii fikirkan keenay oo ninkan lagu magacaabayo Roberto Canisa haddaba dhanka kale dhibaatada ayaa idan qaybo ka mid a dhallinyaradii ay ahaayeen kuwa si walba ay iskugu dayaan awoodi waaya inay cunaan meydadkii ayagoona maalintaas gebi ahaanba iska diiday sidoo kalena ay doorbideenba inay gaajo u dhintaan halkii ay cuni lahaayeen hilibka bini'aadamka laakiin 2 maalmood kadib waxay ku baraarugeen in gebi ahaanba aysan doorasho kale u bannaanayn aan ka hayn in ay ayagna la cunaan hilibkii asxaabtoodii kale taariikhdu markay maraysay 29 Oktoobar 16 maalin kadib shilkii badbaadayaashii ayaa ahaa kuwa habeenkaas la kulmay mid ka mid a habeenkoodii ugu xumaa haddaba habeenkaas markii ay isku dayeen inay seexdaan waxaa dhacday inay maqlaan cod aad u guux weyn kaasoona ka imaanaya dhankii iyo buuraha halkaasoona ay markiiba ku baraarugeen in codkaasu yahay buur barafa taasoona korkoodii ka soo dintay ayagiina ku soo aadan intaas kadib habeenkaas waxaa dhacday in 8 qofood oo halkii ku lunsada barafkii halkaasoona ay badbaadayaashii markan noqdeen oo keliya 19 qofood halka 19kaas qofoodna uu barafkii ahaa mid ku xayiray dhammaantooda space yar kaasuuna ahaa mid barafkii ka kormaray oo barafkii ayaa ahaa mid dhammaantooda qariya ayaga iyo burburkii diyaaraddii ay ku jireenba Said, Roberto, you had it. You're going to die. That's it. A very nice sensation of heat between my legs because I was peeing on myself and saying, that's it. halkaasoona ay ku qaateen 2 maalmood barafkii gudihiisa ilaa ugu dambayntii rafaad badan iyo iskuday badan ay nasiib wanaag u suurta gashay inay bannaankii u soo baxaan laakiin dhanka kale bannaankii ayaa isaguna ahaa mid barafkii iyo duufaantu ay isqabsadeen midanoona mar kale badbaadayaashii ku kaliftay inay godkii ku laabtaan inta ay duufaantan barafka ay ka joogsanayso halkaasoona 3 maalin kale ay godkii ku qaateen ugu dambayntiina 3 maalin kadib waxaa dhacday inay bannaankii mar kale u soo baxaan kadib markii ay xaaladdu sidii hore ka deganaatay haddaba waa markan markii ay badbaadayaashan si dhab ugu ogaadeen inaysan haba yaraatee jirin wax badbaadinaya sidoo kalena gebi ahaanba u maqan halkaasoona ay go'aansadeen in haddii aysan ayagu isbadbaadin sidoo kalena aysan tallaabo qaadin ay naftooda khatar kale sii gelinayaan dhanka kalena inay meeshan sii fadhiyaan sidoo kalena ay sugaan caawimaadna ay tahay oo keliya wax mala awaala
haddaba waxaa dhacday inay markan iska soo dhex saaraan saddexdii qofeed ugu awooda badnaa sidoo kalena xoogaa xoogga lahaa kuwaasoona ah saddexda nin ee lagu kala magacaabayay Kenesa, Barado iyo Vicentin kuwaasoona ay bilaabeen inay siiyaan waxoogaa saaya iyo weliba dharkii ugu diiranaa si ay isla markaas saddexda nin u baxaan ayagoona lugeynaya si ay u raadiyaan caawimaad halkaasoona ay markii u bilaabeen inay qiyaasaan lokeeshinkii ugu dhowaa kaasoona ah goob lagu magacaabayay Kuriko oo bayloodka ayaa inta aysan shilka gelin ka hor midowgiisii rakaabkii inay meeshaas marayaan oo waxay ahayd meeshii ugu dambeysay uu sheego halkaasoona ay raggan qiyaaseen in haddii ay dib u laabtaan waxoogaa ay gaari doonaan isla meeshaas ayadoona mid aysan ogeyn ay ahayd in qiyaasan ay gebi ahaanba qaldanayd waxyaadaba kadib maalmo ay qorsheynayeen kadib waxaa dhacday in ugu dambeyntii taariikhdu markaa 15 November kadib 33 maalin shilkii ay halkii guda galaan saddexdii nin socodkoodii si ay u raadiyaan caawimaadkii intaas kadib waxoogaa saacada ay socdeen kadib waxaa dhacday in dhaxda ay ka sii helaan qaybtii dambe ee diyaaradda oo ahayd mid ka gooda markii uu dhacayay shilku halkaasoona ay gudaheeda ka helaan waxoogaa saaya iyo boorsooyinkii qaybo ka mid ah iyo weliba xitaa daawooyin halka ay dhanka kalena keeneen raadiyo kan caadiga ee two-way communicationka intaas kadib saddexdan ayaa bilaabay inay halkii habeenkoodii koobaad ku qaataan ayadoona kadib markii la gaadhay maalintii dambe ay raggan ahaayeen kuwa go'aansadeen inta aysan socodkoodii sii wadanin ay marka hore tijaabiyaan raadiyogii inuu shaqaynayo iyo in kale halkaasoona ay bilaabeen in raadiyogii ay u raadiyaan Battery ayagoona dhanka kala go'aansadeen inay dib ugu celiyaan diyaaraddii kale laakiin haddana go'aankan ayaa noqonin mid ay isku raacaan ayagoona halkoodii ah kuwa isku dayay inay ka shaqaysiyaan raadiyogii maalmihii dambe oo dhan ilaa ugu dambeyntii ay ku baraarugeen inaysan jirin haba yaraatay wadda kale halkaasoona si ay u badbaadaan ay bilaabeen inay mar kale dib u soo laabtaan kadib markii ay ku baraarugeen inaysan haba yaraatay waxba ka horreynin taariikhdu markii aad 12 December 59 maalmood kadib shilkii haddana waxaa mar kale dhacday in baraf uu ku soo dumo badbaadayaashii halkaasoona habeenkaas ay saddex kale ku naf waayeen barafkaas awgii ayadoona tiradii ay marka noqotay 16 badbaado oo keliya haddaba shilkan kadib waxaa dhacday in mar kale ay saddexdii nin bilaabeen inay mar kale isku dayaan sida ay ugu bixi lahaayeen xaaladdan ayagoona lugahooda ku raadsanaya caawimaad halkaasoona maalintii dambe taariikhdu markaa 13 December kadib 2 bilood shilkii ay saddexda nin ee kala Barado, Kenesa iyo Vincent ay bilaabeen inay mar kale bilaabaan inay raadiyaan caawimaadii ayagoona markan u baxay dhankaas iyo buuriyey weliba qalb la'aan halkaasoona ay markan bilaabayaan inay ka war doonaan waxa buurahan gadaashooda ah laakiin safarkan ayaan ahayn mid sahlan oo buurahan ayaa mid marka ay rabaan baraf xoogan soo ridi kara kaasoona aysan jaanis ay kaga badbaadaan aysan heli karin sida yaataba laakiin raggan ayaan ahayn kuwa waxaasoo dhan isku mashquuliya markaan halkaasoona ay qaateen sahay gaadhiisa 3 maalin intaas kadib waxay maalin ka sii dambaysa ay buurtii sii koraan dhanka kalena ay dhacaysa in tallaabadoodii iyo enerjigoodii uu sii dhammaado halka dhanka kalena ay mar ka sii dambaysa ay kor sii koraan uu oxygenkii ah mid sii yaraada laakiin waxaasoo dhan ma aysan u joojinin ayagoona maalin ku sii xiga horgiisii soconayay si walba ay xaaladdu ugu xumaato si walba uu qab ugu sii darnaado si walba ay daal iyo tabar la'aan u dareemaan ugu dambeyntiina 4 maalin oo ay sidii ku sii jireen kadib waxaa dhacday in mid ay ku baraarugeen ay ahayd in gebi ahaanba ay qiyaasoodii qaldanayd halkaasoona ay arkeen in safarkan uusan ahayn mid gebi ahaanba joogsi leh ayagoona halkii ku arkeen buuraha iyo in kuwa isku xigxiga sidoo kalena aan dhammaad lahayn intaas kadib maadaama aysan waqti xadarkan wax cunto haysanin Vincent ayaa ahaa mid go'aansaday inuu markiiba laabto halka labadii kalena ay go'aan ku qaateen inaysan haba yaraatay wax laabashaa jirin dhankooda sidaas darteedna ay hor u sii soconayaan intaas kadib Vincent ayaa ahaa mid laabtay dabcanna laabashadiisu waxay ahayd mid iska sahlanayd oo buurtii ayuu ahaa mid iska taraaraxiya halka inuu gaadho badbaadayaasha ay keliya ku qaadatay saacado kooban dhanka kale Barado iyo Kenesa ayaa iyaguna ahaa kuwa hore safarkoodii u sii wata walow ay ogaayeen halis ay wajihi karaan oo meeshan ayaa ahayd meel aan wax kale la arkayn inaan ka hayn dhul wada buura ah sidoo kalena wada baraf ah 4 jihoodba intaas kadib waxaa dhacday inay bilaabaan inay fikiraan meesha ay ka bilaabi lahaayeen safarkoodan maadaama 4 tijaabo ay buuro ka jireen halkaasoona markii dambe ay ku baraarugeen in 2 buuradoo ka xigay dhankaas iyo galbeedka ay yihiin buuro bilaa barafa ayagoona go'aansadeen inuu dhaqaaqaan dhankaas iyo buurahaas walow ay meel karo ka arkeen sidoo kalena aysan hubin ayadoona ujeedkoodu ahaa oo keliya inay barafkan dhaafaan sida yaatab waxay maalmihii dambe oo dhan Barado iyo Kenesa ahaayeen kuwa sii kora buuriyey ugu dambeyntii waxaa dhacday inay halkii ku arkaan tog yarkaasooyna biyihii webigu marayaan halkaasoona ay markiiba bilaabeen inay afkii kula ordaan biyihii xaaladaasoona markiiba ka dejisay culayskoodii ugu weynaa haddaba raggan ayaa markiiba ahaa kuwa raaca jihadii uu webigu socday ayagoona rajaynayay in webigan uu geyn doono meel ay dadku nool yihiin waxay socdaanba ugu dambeyntii 9 maalmood oo socda kadib 20 December raggan ayaa halkii ku arkay meel ay ibni aadamka arki karaan ayagoona halkii ku arkay webigii dhinaciisa kale 3 nin oo farda saaran laakiin waqti xaadirka raggan ayaa ahaa kuwa aysan haba yaraatay wax tabara ku hadhin
asaguna baraadha inta karaankiisa ahaa mid isku dayay inuu qeyliyo raggii laakiin webiga socodkiisa iyo baraadha tabarla'aantiisa awgeed raggan ayaan ahayn kuwa maqla codkii baraadho ilaa ugu dambayntii uu mid ka mid a raggii ahaa mid arka raggan gacan haadintoodii halkaasuna bilaabay inuu isku dayo inuu jawaabo laakiin isfahan waa kadib maadaama webigu aad u weynaa ninkii ayaa bilaabay inuu sheegay erey ah berrito macnaha berri marka la gaadho ayaan idin soo laaban doonaa waa sida ay u fahmeene ayagoona intaas kadib sugay maalintii dambe halkaasuna maalintii dambe Xaamid soo laabtay asagoona hore u soo qaaday warqad iyo qalin taasuna inta uu dhagax ugu soo xidhay Xaamid dhinacii kale webiga ugu soo tuuray si ay ugu wada xidhiidhaan warqadaas maadaama aysan ismaqlaynin halkaasuna uu baraado markan helay fursadii uu adduunweynaha ugu diri lahaa fariintiisa ayadoona warqadii uu ahaa mid ku qoran luuqadda Isbaanishka ee macnaheedu ay ahaayeen waxaan ka imaaday diyaarad shil ku gashay buuraha waxaan ahay nin u dhashay Uruguay aniga iyo saaxiibkii waxaan soo soconay maalmo 10 maalin ah waxaan gadaal uga soo tagnay asxaabtanadii oo ahaa kuwa dhaawacan asxaabtaasoo ka kooban 14 qofood waa in meeshan sida ugu degdeg badan looga soo gaadho ma haysan nabi yaraatay wax cunto ah oo aad ayaan u tabar daranahay fadlan goorma ayaad noo soo gurmanaysaan xitaa ma dhaqaaqi karno xagee ayaan joognaa haddaba dhanka kale ninkan uu message ku gaadhay ayaa ninkan oo lagu magacaabay Sergio Catalan kadib markii uu ninkan aqriyay qoraalkiina waxaa dhacday inuu markiiba warkii gaarsiiyay labadiisii saaxiib kuwaasoo markiiba gartay dhacdadan iyo shilkan ayagoona ah kuwa hore u maqlay in diyaaradan la weysan yahay halkaasuna uu arrinkii ayagii ku noqday mid shoog ku riday in diyaarad 2 bilood ka hor burburtay ay dad ka sii nool yihiin intaas kadib Sergio ayaa Xaamid rooti u soo tuuray badbaadayaashii dhinaca kale joogay si ay ugu sii sugaan halkaasuna asnaha mid dib ugu laabtay goob loo soconay 8 saacadood asagoona warkan gaarsiinaya intaas kadib markii uu gaaray magaaladii ugu dhaweyd waxaa dhacday inuu markiiba ku wargeliyay xaruntii ciidamada warkii halkaasuna markiiba la xiriiray xaruntii ugu weyneed ee Santiago halka raggii kale tuuladan ay ahaayeen kuwa soo qaada labadii badbaade ee Baraada iyo Kanesa ayadoona markii dambe la ogaaday in raggan ay ahaayeen kuwa soo jaray masaafo gaadhaysa 61 kiiloomitir oo looga 10 cishay la soo dhaafayay halka markii la helay labadan nin ahaayeen kuwa gebi ahaanba isbedelay halka miisaankoodu ahaa mid si xad dhaaf isku dhimay oo miisaankooda ayaa waqtigaas ahaa oo keliya 30 kiilo intaas kadib markii ay dadii u arkeen badbaadayaashan way rumaysan waayeen gebi ahaanba waxay indhooda ku arkeen iyo weliba sheekada badbaadayaashan isla markiina waxaa dhacday in warkii uu markiiba noqdo mid international ah dhanka kale dowladii Chile ayaa ay mid dirtay 3 diyaaradood oo helikabtar ah si loo soo badbaadiyo badbaadayaashii kale ee shilkan sidoo kalena ku sugnaa burburkii diyaaradda halkaasuna ay weydiiyeen Baraada iyo Kanesa inay u sheegaan locationkii meeshan laakiin Baraada ayaa mid yiri aniga ayaa idin kaxeynaya goobtaas halkaasuna ah mid shirkii hore ee diyaaradda fuula si uu markan waajibkiisii u guto sidoo kalena uu soo badbaadiyo asxaabtiisii kale halkaasuna caawimaadii Baraada lagu ogaaday isla markiiba goobtii saxda ahayd ee ay joogeen intii ka hadhay badbaadayaasha ahayd ugu dambeyntiina taariikhda markaa 22 December 1972 kadib 72 maalin shilkii laba ka mid ah helikabtaradii ayaa ahaa kuwa soo gaadhay goobtii kuwaasoona halkii ku badbaadiyay dhammaan intii ka hadhay badbaadayaashii shilkan haddaba guud ahaan badbaadayaashan ayaa ahaa 16 qofood halka dhammaantood ay ahaayeen kuwa waqtigaas ku sugnaa xaalad aad u xun inkastoo nasiib wanaag ay dhammaantood gadaalka wada caafimaadeen sidoo kalena ayba qaarkood yihiin kuwa ilaa hadda nool waxay haddaba qisada lama ilaawaanka ayaa dhammaanteena baraysa awoodda ay leedahay rajadii iyo hamigu adigoona maanta haddii aad wax rabto sidoo kalena aad la timaado dulqaad iyo dadaal ay isla markaas wax walba suurtagal yihiin asagoona qofka ibni aadamka uu ilaahay siiyey awood ah inuu kaga dhabayn karo wax allaala waxa uu rabo haddii uu aaminsan yahay naftiisa haddaba saaxiibayaal haddii aad ka hesheen muuqaalkan xiisaha badan ee mucjisadii falaydkii 571 waxaan sidoo kale rajaynaya inaad ka wada heli doontaan muuqaalkii kan ka horreeyay ee asnaha baxsashadii diyaaradii ugu weyneed abid iyo mid ka mid a kiisaskii ugu adkaaya ay la kulmaan FBI-du haddaba haddii aad muuqaalkaas hore u soo daawan fadlan hadda soo daawo adigoo isla markaas ku dhufanaya thumbnailka shaashada kaaga muuqanaya halkaas ayaa noo balana